waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xidhan channelka qoyskaabe kusoo dhawaada clipkan yar gaaban waxaynu kaga hadli doonaa caawa su-aal yar oo runtii micno ballaaran leh. su-aashaasi maxay noqonaysaa? waxa weeyaan ma bannaan tahay in qoysaska qurbaha ku nooli ma wada aha, laakiin qoysaska qurbaha ku nooli in ay qayb ka midi ama qoysas ka midi ay ama xagga ninka ka timaado ama xagga gabadha ka timaadee ay u dhalaan awlaada inay ku qaataan adduunyo. su-aasha kooban aan soo kooban, ma bannaan tahay in awlaada loo dhalo adduunyo in lagu qaato? su-aashaasi waxa ay runtii in badan ay burburisay ama ay kala kaxaysay qoysas fara badan oo runtii hamigii ay lahaayeen uu soo safarkaa aadka u dheeraa ee quruxda badnaa waxa soo gaabiyey oo cirib jaray ama cirib tiray aan idhaahdo in yaroo adduun ah oo laysku qabsaday. badanaaba qurbaha marka la joogo waxaad arkaysaa ama aada la sheekaysanaysaa in rag fara badan, dumar fara badan oo ka cabanaya arrimaha qoyska iyo sida loo maamulo iyo qaabka loo xalka maxaheeday meelo badan ay ka raadinayaan, balse laakiin meel yar oo dhow oo gaaban ay wax walba ku jiraan. laakiin dadkeena badanku arrinkaa isaga ah ma fahmaan. aan tusaale usoo qaato, waxaa jirta iminka qiso runtii aada iyo aada aan idinkuna aan idinla jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo. mid asxaabta ka mid ah oo ila wadaagay su-aal aada u runtii igu kaliftay inaan barnaamijkan caawa aan idinla wadaago ay tahay. wuxuu yihi dumarka qaar ma wada odhan karo, dumarka lama wada ceebeyn karo in ay u dhalaan awlaadaba in maxaheeday ay ku qaataan qarashaad oy berri ka maalin ninkii albaabka ay daaqada ka tuuraan oo ay maxaheeday bacdiisa dibadda u dhigaan. tusaale yaroo gaaban buise wuxuu yihi gabadha qurbaha joogtaa markay 2 ku dhasho, hadda waa 2 keliyaad, 3 maaha 4 maaha, 2 markay ku dhasho buuri go-aan bay gaadhaysaa. go-aankay gaadhaysaa waxa weeyaan waa isku filnaanshiyo halkii u dambeysay ah. maxay ku xisaabtamaysaa? allahuma salli calaa maxamed aan idhaahdo shilimaadka yaryare imanaya. isku soo wada duub hadafkii qoyskaasi lahaa waa su-aashii baynu weli daba socon maayee jawaabteedu ma wuxuu noqonayaa in markaa labadaa awlaada ilaahay reerka usoo kordhiyey shilimaadka yare reerka kusoo duldhacaya ee tuurtuurka ay himiladii iyo hankii ay lahaayeen ay burburiyaan, taas oo badanka loo aaneeyo dumarka. sababta loogu aaneynayo ama eedaa dhakada looga saarayana aan in yar tibaaxe yaan la ii fahmin in aan, laakiin waan soo bandhigaya xaqiiqada rasmiga jirta. waxa weeyaan in ay hablo fara badan ay u guursadaan marka hore in ay ilmo dhalaan, ilmahaas oo ay hadafka iyo guusha ay ka leeyihiin ka dambeysa ay tahay in ay lacag yar oo caydha ay ku qaataan sidii ay noloshooda ugu maarayn lahaayeen, ama ay meel wax uga dhigan lahayd, ama shoobinkeeda ku iibsan lahayd, ama hagbada ku geli lahayd. adoo cumuuman isku soo wada duub reero badanna waxaa rogay hagbad ama ayuuto, qofba siduu u fahmo. qurbaha dhibka ka taagan caawa su-aashaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. asxaab fara badan ama dad fara badanna su-aashaasi maskaxdooda way ka guuxaysaa. maxaa keena oo burburiya qoysaska qurbaha in ay markaba maxaheeday isfahmi waayaan oo ay kala tagaan, ama awlaada markay dhexdooda timaado in odayga bacda dibadda loo dhigo. duruufo fara badan oo jira anigoon daaha ka wada qaadaynin, balse laakiin caawa intii u horeysay barnaamijka qoyskaabe wuxuu idiin soo yara ifafaaleynaya ayuu idin tusayaa qayb ka mid ah iinaha ama dhibaatooyinka jira in ay ka mid tahay shilimaadka yaryar ee dulsaarka ah ee caruurta lagu qaadanayo, in mustaqbalka iyo himiladii ay qoyskaasi lahaayeen ay cidhib jarto oo halkaa gabadhii iyo ninkii isqabay ay iga raallahada ay ku kala dhaqaaqaan oo runtii meeshaasi burbur iyo khilaafu ka dhaco. idinkana bal eedda dumarka ma wada saaray, laakiin dad badan oo ku shaqaysta oo Yurub jooga ayaa jira arrinkaas oo hadafkoodu yahay inaanay qoys dhisan, balse laakiin uu yahay hadafkoodu in ay shilimaad ku helaan awlaada ay dhalaan. ma saxbaa mise waa qalad?
calaamatu su-aal ayaa saaran, dadweynaha ayaana kasoo jawaabi doona. waa anigoo Ridwaan ah oo idin leh qoyskaaba channel. asxaabta intiina daawanaysa sheer gareeya, waa idinka aad baan idin salaamaya.